بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، halkan waxaan isaga soo jeedinaynaa mawduuc ku saabsan xifdu lisaan, carabka dhowridiisa la dhowro oo laga dhowro waxyaabaha xaaraamta ah inuu qofku ku hadlo isagoo sahlanahaya carabkiisa inuu ka ilaaliyo. mawduuc ku saabsan ayaan isu soo jeedinaynaa biidni illaahi alkariim. xifdu lisaani fardu cayn, carabka xifdintiisa min alkalaami alqabiixi laga xifdiyo kalaamka qabiixa oo xun waa fardu cayn. qof walba ayuu korkiisa farad ku yahay, waayo dhibka carabka uu ku qowlayo isaga ayuu u soo noqonahayaa, dararkiisuna waa mid cadiima oo weyn. dhibaatadaas marka inuu iska ilaaliyo, waxa uu ku dhawaaqayo wax wanaagsan uu ka dhigo ayaa qof walba waajib ku ah. haddii aadan iska ilaalinna kelimo ayaad ku hadli doontaa meesha ay gaaraysa aadan ogeyn, ilaahay caradiisuna korkaaga ay ku sugnaanaysa kelimadaa daraaddeed. waxaa jirtay xadiis abu hurayra uu wariyey oo nebiga uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam: ina alcabda layatakallamu bilkelima maa yatabayanu maa fiiha yahwi biha fi nnaar abcada maa bayna almashriqi waalmaqrib. xadiiska imaamu bukhaari iyo muslim baa bixinahaya. wuxuu yidhi nebigeennu, addoonku wuxuu ku hadlahayaa kelimo ayuu ku kalaamin uuna kala caddaysanaynin waxa dhexdeeda ku sugan oo dhibaato ah. kelimadaa sababkeedna naarta uu kusii dhex hooban, wax ka fog meesha qorraxdu ka soo baxda iyo meesha ay u dhacdo, asagoo kelimada aan tadabburin oo aan fiirfiirin waxa ka ratimahayo dhibaato aan fiirinayn yow isaga kalaamahayaa. markaasuu kelimadii sababkeeda wuxuu naarta kusii hoos ugu quusayaa maa bayna almashriqi waalmaqrib, wax ka fog qorraxdu meesha ay ka soo baxda iyo meesha ay u dhacdo, inta ka dhaxayda wax ka fog ayuu naartii hoos u gelahayaa. intaada ku qowlin inaad fiirsato ayaa kuu fiican oo carabkaaga aad ka ilaaliso, aada iska xifdida dhibaatadiisa. waxay dhaheen bacdu alculamaa: ina allisaana xayatun maskanuha alfamu. carabku waa abeeso, godkiisuna waa afka baa la yidhaahdaa. abeesadaasi godka ay ku jirtaa afka weeye. haddii aadan iska ilaalin, abeesadaasi waa ku cunaysaa. wuxuu yidhi cabdullaahi binu mascuud, saxaabigii raggii waaweynaa oo asxaabta ka mid ahaa: laysa shayun axwaja ilaa duuli sijnin min allisaan. ma jira shay uga dhibaato badan in xabsi lagu dheereeyo carabka. haddii shayba u dhibaatooyaha in xabsi lagu dheereeyo la xabiso, carabka ruuxa ayaa ku owlaa buu yidhi inuu iska ilaaliyo qofku. inuu aamusnaado oo khayrka ma ahana inta kale ka aamusnaado, nabadgelyo ayuu ku helahayaa. asumtu salaama wa fi takallumi nadaama. aamuska waxaa lagu gaaraa nabadgelyo, kalaamka aad ku hadashana nadaamo iyo qoomamo iyo shallayta ayuu ku dambaynahayaa, mar haddii kalaamkaasi kalaam xun yahay. waxaa xadiis uu ahaa: man samata najaa. ruuxii aamusa oo xumida ka aamusaa waa koraa.
midkii xumida ku dhawaaqana carabkiisaa cunaya sidii caarifkuba uu yidhi ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldagannaka innahu thucbaan buu yidhi carabkaaga xifdi buu yidhi ruux yahow yuuna ku qaniinin waa mas haddii aad isku fasaxdo carabkaagi waa ku cunahayaa laakiin inaad iska ilaalido ayaa wanaagsan naarta waxyaabaha dadka loogu ridahayo waxa ugu badani carabkooda weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kii saxaabigii Mucaad binu Jabal ahaa markii uu ku yidhi ilaahay rasuulkiisa ma waxaa naloo qabanahayaa waxa aan ku hadlayna ayuu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi yabna jabal wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim sidaasuu ku yidhi miyaa dadka ay naarta ugu dhacaan wajawaji iyo sansan ilaa carabkooda maahan wixii ay ku shafteen maahane wax kaleeta miyaa ugu ridahaya waxa ugu ridahaya wajiwaji wixii carabkooda ay ku kasbadeen cabdullaahi binu mascuud wuxuu la hadli jiray carabkiisa markaas buu wuxuu dhihi jiray yaa lisaanu qul khayran taqnam waskud can sharrin taslam min qabli an tandam carabkanow waxaad ku qowshaa khayr markaasna khanimayso ayuu dhahayay haddii kale sharta ka aamus ood nabadgeshide intaadan nadaaman oo aadan shallaayin berri sidaas ayuu u edbinahaya carabkiisa qofkii carabkiisa ka reeba xumida ilaahay cawradiisa wuu asturaa caradiisana waa ka magan geliyaa wuxuu ahaa xadiis nebiga laga wariyey man kafa lisaanahu satara allaahu cawratah waman malaka ghadabahu waqaahu allaahu cadaabah waman ictadara ila allaahi qabila cudrah ruuxii lisaankiisa reeba oo xumida ka reeboo ka ilaaliya ilaahay cawradiisa ayuu asturaa ruuxii caradiisa hanta oo markii uu caroodo aan fulin wixii uu carooday oo markaa iska celiyo caradii ilaahay cadaabkiisa ayuu ka koriyaa ilaahayna ruuxii u soo cudur daarta oo u tooba keena cudurkiisa wuu aqbalaa carabkiisa marka qofku inuu xakameeyaa waajib bay ku tahay khatartiisuna aad bay u weyn tahay ruuxuna dhibaatadiisa kama koro ilaa binnutqi bilkhayr inuu khayrka ku dhawaaqo maahane waxaa nebiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi nebigeennu laa yastaqiimu iimaanu alcabdi xataa yastaqiima qalbuh walaa yastaqiima qalbuhu xataa yastaqiima lisaanuh walaa yadkhulu ljannata rajulun laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah ruuxa iimaankiisu ma tooso inta qalbigiisu uu ka toosayo qalbigiisuna ma toosayo inta lisaankiisu uu ka toosayo oo waxa wanaagsan kaliya uu ku dhawaaqayo ruuxu jannada ma gala buu yidhi ruux janno ma gala aan dariskiisu ka aamin noqon balaayadiisa sidaasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka carabkaagii toosidiisa waxaa ka imaanahaya qalbigaagu inuu tooso oo iimaankaagu uu tooso taasaa ka imaanaysa ou kuu ilaalsama iimaankii waxa xunna aad ka ilaalido waxa wanaagsanna aad ku dhawaaqdo midkaas ayaad uga qaalib noqonaysaa shaydaanka wuxuu ahaa xadiis akhzin lisaanaka ilaa min khayrin fa innaka bidaalika taglibu shaydaan carabkaaga ka hooji carabkaaga ka xabis khayrka intii aan ahayn oo dhan carabka ka xabisa khayrka ku fasax markaasaad ka qaalib noqonaysaa shaydaanka iyo dhibaatadiisaba waa ka qaalib noqonaysaa
aafaadka marka carabku aad bay u fara badan yihiin. masalan aafaadkiisa waxaa ka mid ah ruuxu inuu kalaam ku qowlo oo uu ku hadlo ayaa ka mid ah oo maalaa yacni ah. wuxuu ahaa xadiis nebiga laga wariyey min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniihi. ruuxa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah ka tegitaanka uu ka tago waxa maalaa yacniga ah, hadallada aan aakhiro iyo adduun midna anfacaynin oo aakhiradiisana dhaafinaya adduunkiisana aan waxba u gelayn inuu carabkiisa ka ilaaliyo. taas ayaa ka mida ruuxa islaamnimadiisa wanaaggeeda. waxaa ka mida waxyaabaha ruux carabku uu keenayo aafaadkiisa fuduululkalaam, hadalka faadilka oo aadan u baahnayn oo aan waxba kuu anfacayn inaad carabkaaga ka ilaaliso. taas ayaa ka mid ah sidii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, duubaa liman amsaka alfadla min lisaanih wa anfaqa alfadla min maalih. waxaa liibaanta janno iska leh ruuxii waxyaabaha dheeraadka ah oo hadalka carabkiisa ka qabta, maalkiisana nafaqeeya, wixii asaga xaajadiisa ka faadil ah oo ka dheeraad ah sadaqaystoo sii hormarsada. midkaas ayaa liibaanay oo liibaanta janno iska leh. shajaratu duuba waa geed jannada ku taalla oo ilaahay uu u diyaariyey inay cunaan midhaheeda, harsadaanna ay ku raaxaystaan dadka ahlullaahiga ah oo muttaqiinta ah. waxaa ka mid ah aafaadka carabka alkhawdu fi lbaadil, inaad masalanba dabaalato waxyaabaha baadilka ah, waxyaabaha xuxunka ah, sidii nebiguba xadiiska uu ku yidhi acdamu nnaasi khadaayan yowma alqiyaama akharuhum khawdan fi lbaadil buu yidhi. dadka waxaa ugu dembi badan oo ugu dembi weyn maalinta qiyaame kuwa ugu badan dabaalashada baadilka ay isaga hadlaan oo hadalka baadilkaa dhex gala ah, kuwaasaa ugu dembi badan buu yidhi, uguna dembi dheer. hadda kuwa xumaanta dabaasha berri qiyaama waa shallaayin iyakoo naarta ku jira. waxay dhihi doonaan wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiina, waxaan ahayn kuwa dabaasha baadilka, kuwa dabaalanaya micigooda. haddii aad aragta kuwo baadil daboolan waa laga digtoonaadaa, agtooda lama fadhiistaba. sidii ilaahay aayadda uu ku yidhi falaa taqcuduu macahum xataa yakhuuduu fii xadiisin gayrih innakum ida misluhum buu yidhi. kuwa dabaalanahaya baadilka micigooda ha fadhiisannina intii ay ka baxayaan oo sheeko kale ay ka gelayaan inta baadilkii ka tagaan. haddii aad la fadhiisataan kuwa baadilka dabaalanaya adunkuna la mid baad noqonaysaan, isku dembi ayaad noqonaysaan. markaasaa nebigu wuxuu leeyahay ha la dabaalanina, ka dheeraada. kelimada ay ku hadlahayaan ayayba ku sii hoobanayaan, carada ilaahayna ay ku gaarahayaan. waxaa jira xadiis imaamu tirmidi uu bixinayo, abu hurayrana uu nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam, ina axadakum layatakallamu bilkalimati min ridwaani illaah maa yadunnu an tabluga maa balagat fayaktubu allahu lahu biha ridwaanahu ilaa yowmi yalqaah. wa ina axadakum layatakallamu bilkalimati min sakhadi illaah maa yadunnu an tabluga maa balagat fayaktubu allahu calayhi biha sakhadahu ilaa yowmi yalqaah. xadiidka imaamu tirmidi baa bixinaya, kitaabkiisa sunanka ayuuna ku bixinayaa. axadkiin wuxuu ku hadlahayaa buu yidhi kelimo ilaahay raadi ahaanshihiisa xaggiisa ka ahaatay oo kelimaadka ilaahay raadiga ka yahay ka mid ah. axadkaasina ma malaynayo meesha ay gaaraysa inay gaarayday ma malaynayo. markaasaa ilaahay wuxuu u qorayaa ruuxii ku dhawaaqay kelimadii sababkeeda
raadi ahaanshihiisa ayuu qorayaa ilaa maalinta laga gaaro qiyaame yaa ilaahay ka raadi noqonayaa. mar haddii ilaahay raadi kaa noqdana jannadiisa ayaad gelaysaa, naxariistiisa ayaad gelaysaa. waxa ilaahay bixiyo ridihiisa ayaa ugu weyn, waa nicmada midda ugu sarraysa weeye. marka waxaad ku gaartay kelimadii khayrka aheedood ku dhawaaqday, ilaahay raadi ahaanshihiisii ayaad ku gaartay. inaad ku gaartana adigu ma ogidoo waa kula fududeed. wuxuu xadiidka ku sii yidhi nebigu, wainna axadakum layatakallamu bilkelimati min sakhadi illaah maa yadunnu an tabluga maa balagad. axadkiin wuxuu ku kalaamayaa kelimo ka mida kelimaadka ilaahay u caroodo, mana uu malaynayo meesha ay gaartay inay gaarayda ma malaynayo. fayaktubu allaahu calayhi bihaa sakhadahu ilaa yawmi yalqaah. ilaahay wuxuu u qorayaa caradiisa ayaa ruuxaas loo qorayaa ilaa uu ilaahay kala kulmo maalinta qiyaame. haddii ilaahay u caroodo ruuxana naarta ayuu geynahayaa, raxmaddiisana waa ka dheeraynahayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. kelimadu laba unbay mid noqonaysaa, ama carada ilaahay bay kuu soo jiidin ilaa qiyaamo laga gaaro. waa kelimada hadda baadilka ah, sida dacniga la duro dadka cirdigiisa, mu'miniinta cirdigooda lagu dhaco, mu'minaadka gabdhaha ah cirdigooda lagu dhaco, sharafkooda la duro. iyo kelimada masalanba dadka madaxda ah dadka kula dirdirayso oo aad dadkii iyo asagii isku dirdirin, isku jaajuusayso. middaas ayaa ka mid ah dadka xantoodu aad iyo aad ay u daran tahay. waxaa ka mid a dadka culimada ayaa ka mid ah, mu'miniinta ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniintiisa ah, dhibaatadoodu aad bay u daran tahay weeye. kuwa saalixiinta ah xantoodu waa ka daran taha kuwa kale, waayo dadkii ahludiinka ahaayood xamanaysa weeye, oo carabkaagii aad ku cunayso, carabkaagii aad ku nuqsaaminayso. waa dadkii la amray inay dadku ku daydaan, ayakuna dhaxleen ambiyadii ilaahay. kuwaas inaad ku dayataa la rabay ood ayaka raacdo. marka kelimadaasi kelimo xun bay noqonaysaa. kelimada wanaagsani waxa weeye masalanba sida dadka aad u shafaacdo oo dadka madaxda agtooda aad uga ergayso, kuwa halaagga u dhowood koriso, kuwii sadaqo u baahan ood ku sadaqaysato, macruufka oo dadka aad farto, munkarkana aad ka reebto dadka. waxyaabaha dhibaatadu ay ku gaaraysood ka reebto. waxyaabahaasoo dhami waxa weeye waxa ruuxu uu ku karo ilaahay raadiga ka yahay. kelimaadka waa wanaagsan ayay noqonayaan. inaad ugu yeerto dariiqa wanaagsan oo dadkii aad hanuuniso, sida dadka culimada ahi ay dadkii ugu yeerahayaan khayrka, dariiqa wanaagsan ay ku qumayaan oo awaamirta ilaahay ay ku gudanayaan ayaad ugu yeeraysaa. yeeriddaasna waxaa lagu gaaraa aclaa darajaati ridwaan baa lagu gaarahayaa. ilaahay raadi ahaanshihiisa darajaadkeeda kuwa ugu sarreeya ayaa lagu gaaraa. wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala, waman axsanu qawlan minman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin. waa midkee kan ka wanaag badani oo ka qowl wanaagsani ruuxa dadkii ugu yeerahaya ilaahay daacadiisa ee haddana camal wanaagsan samaysanaya, markaasna dhahaya anigu waxaan ka mid ahay kuwa muslimiinta ah oo hoggaansamay oo amarkii ilaahay raacay. midka ka wanaagsani waa kee? hadda midka wanaagsani ma jira weeye. sidaas ayaa loo jeedaa. marka waxyaabaha baadilka ah inaad ku hadasho waxay ka mid tahay aafaadka lisaanka. aafaadka lisaanka waxaa ka mid ah doodda ayaa ka mid ah. aad waxyaabaha baadilka ku doodayso ee dariiqii xaq ahaa kaa luminahaya. waxaa nabiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam, maa dalla qawmun bacda an hadaahum allahu ilaa uutuljadal buu yidhi. qoom ma lumaan buu yidhi ilaahay markuu hanuuniyey ka bacdi
ilaa waxaa la siiyaa dood baa la siiyaa markaasay dooddaas kaliya ku jirahayaan dadka ay la doodayaan ra'yigoodu la wanaagsanaanayaa la juujiin bay noqonayaan sidii uu yidhi ninkii la dhihi jira bilaal binu sacad idaa ra'ayta rajula lajuujan mumaariyan mucjiban bira'yihi faqad tammat khasaaratuhu buu yidhi haddaad aragta rajulka isagoo lajuud ah oo doodlow ah oo isku sii taagmahaya haddana doodda ra'yigiisana la yaabahaya khasaaradiisii markaas waa taam noqotay waa khasaarahayaa adduun iyo aakhiraba khasaare ayuu ku jirahayaa aafaadka lisaanka waxaa ka mid ah masalanba middaas aan sheegnay oo doodda ahaa ka mid ah waxaa ka mid ah axaadiisii nebiga ina abqada arijaali ila allahi al'aladu alkhasim ragga midka loogu caro badan yahay ilaahay agtiisa waa midka doodda badan leh oo dooddiisu ay adag tahay oo baadilka ku sii taagmaya midkaas weeye baa la yidhaahdaa waayo waxaa a'immatul islaam laga wariyey alkhusuumatu mabda'u kulli sharrin dooddu waxa weeye shar kulligeed meesha ay ka bilaabato weeye oo ruuxu doodlow noqdo balaayo uu kiciyo albaabka sharta ayay furaysaa waa laga digtoonaadaa ilaa inay dhibaata kuu geydo maahan inaad doodee haddii xataa dhibaata ay kuu geyso waxaa owlaa inaad xifdido carabkaaga iyo qalbigaaga dooddaasina aysa baadil kuu geyn taas ayaa la rabaa oo dadka aad ugu qawsho aad la doodaysa hadal wanaagsan oo diib ah sidii ilaahay yidhiba waquuluu linnaasi xusnan buu yidhi waxaad u tidhaahdaan dadka hadal wanaagsan ugu qawla sidaas ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimada aad ugu dhowaanayso inaad fiiriso ayaa la rabaa ood markaa ku dhawaaqdo kelimada xuntaana aad iska ilaaliso waxyaabaha aafaadka carabku keena ka mida waxa weeye dhibidda dadka la dhibo cayda la caayo taasaa ka mida iidaha lisaanka nebigu calayhi salaatu wasalaam fuxshi samaynta dadka la caayahayo aad buu uga digi jire waa madmuum waa manhiyu canhu waa wax ilaahay reebay oo nala ka reebay wuxuu yidhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam iyaakum waalfuxsha fa ina allaha tacaala laa yuxibu alfuxsha wala tafaxush war adinka iyo fuxshi baan idiin kala digayaa waayo ilaahay ma jecla mana sawaabinahayo fuxshiga kuwa sameeya iyo kuwa fuxshiga iska keenkeena labadoodaba ilaahay ma jecla mana sawaabinahayo ruuxa muuminka ahi maba aha mid dura dadka oo dadka lacnada oo faaxisha oo xumida ku carab dheer maahan wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam laysa almu'minu biddacaani wala allacaani wala alfaaxishi wala albadii buu yidhi mu'minku ma ahan mid dacaan oo dadka dura lacaan dadka lacnada oo lacnad ku ridahaya faaxish fuxshiloobaho waxun ku dhawaaqaya mid carab dheer oo xumida ku carab dheer ruuxa mu'minkaahi maahan sidaas ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa la iska ilaaliyaa marka waxaa dhacday maalin ayaa nebiga waxaa u yimid calayhi salaatu wasalaam nin heer baadiya ayaa u yimid markaasoo wuxuu ku yidhi uusinii yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisaw ii dardaaran buu yidhi markaasoo wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uusiika bitaqwa allaah wain imri'un cayaraka bishayin yaclamuhu fiika falaa tucayirhu bishayin taclamuhu fiihi yakun wabaaluhu calayh waajruhu laka walaa tasubanna shay-an buu yidhi ilaahay taqwadiisa laazim buu yidhi ilaahay cabsidiisa mar walba ku sugnaaw haddii ruux ku ceebeeyo shay uu og yaho adiga dhexdaada ku sugan hadduu kugu ceebeeyo ha ku ceebaynin adigu shay aad og taho asaga dhexdiisa ku sugan ha ku ceebayn yakun wabaaluhu calayhi caydaas baaskeeda iyo balaayadeeda korkiisa ayay noqonaysaahe
ajarka meeshaa ka soo dhacayana adiga ayuu kuu sugnaanayaa ee shayna ha caayinoo waxa ka sheegin ayuu yidhi. ninkii markaas kabacdi wuxuu dhihi jiray famaa sababtu shay-an bacdah, nebiga kalaamkiisaas kabacdi shayna ma caayinoo waxba kama sheegin buu yidhi. ilaa haddii aad cayda shay, caydaasi ama waa ku rumoobaysaa oo wax ku yaallay noqonaysaa oo aad ku ceebaynayso, dhibaatayna kuu keenaysaa oo xan bay noqonaysaa, ama waxay noqonaysaa mid aan ku sugnayn oo been abuurada ayay noqonaysaa. markaasaa waxaa nebigu diidahayaa cayda la caayo qofkii muslimka ahaa, qofkii mu'minka ahaa. ruuxa mu'minkaa lamaba ogolaba caydiisa. wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun. ruuxa sibaabu lmu'mini fusuuqun wa qitaaluhu kufrun. riwaayo kalena sidaasay ahayd. ruuxa muslimka ah caydiisu waa faasiqnimo, qofku daacadii buu uga baxayaa, dagaalkiisuna waaba gaalnimo. hadduu qofku bannaysto in dhiiggiisu u bannaan yahay waa ku gaaloobahayaa. haddii uusan bannaysana zajri iyo tanfiir bay noqonaysaa. arrintaa laga eryayo oo loo diidayo taas ayay noqonaysaa weeye. waxaa ka mid ah aafaadka carabka, kaftanka oo dadka la kaftamahaya ayaa ka mid ah. waayo kaftanku waxaa laga yaabaa inuu waxun kugu jiido ayaa laga yaabaa, waa layska ilaaliyaa. mid madmuuma ayaa jira, haddaad daa'imtana kaftanka marka dambe ifraad baad samaynaysaa oo waad ku xadgudbaysaa. laakiin wixii xaqa oo jira markaas waa kula kaftami kartaa qofkaad la kaftamayso. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kaftami jira mararka gabal. waxaa dhacday inuu yidhi nabigeennu innii la amsaxu walaa aquulu xaqan buu yidhi, waan kaftamayaa oo waa idinla kaftamayaa buu yidhi. waxaan xaqahayna ku qawli maayo, carabkayga soo mari maayaan. ilaa waxaa carabkiisa soo maraya waxay ahaayeen dhammaantoodba xaq bay ahaayeen. sidii ilaahay uu yidhi maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. nebigu maba ku lafdoonaynin waa kii aayadda ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. aayaddaa ma ahayne aayad kaleeto ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa. kuma dhawaaqa nebigu hawadiisa xaggeeda iyo cishqigeeda ka dhawaaqi maayo. waxa uu ku dhawaaqahayaa wax kalaba ma ahan ee waxyi weeye, ilaahay u waxyooday. aayaddaas ayaan u jeedaa weeye. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhawaajinahaya waxyi ayay ahaayeen. kaftanku markii uu xaq yahay oo run uu yahay waa mid jira weeye. waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa maalin waxaa u timid islaan cajuusaahoo duq ah ayaa u timid baa la yidhi oo indhaha biyo iyo ku leh. markaasuu wuxuu ku yidhi laa yadkhulu ljannata cajuuzun buu yidhi, naag cajuusaahi janno ma gelaysa buu yidhi. markaasay gabadhii cajuusadahayd iska boyday. markii ay boydaan nebigu wuxuu ku yidhi innaki lasti bicajuuza yowmaydin. maalintaas la gelahaya jannada cajuusadan hadda aad tahay ma ahaanaysid. ilaahay wuxuu yidhi innaa ansha'naahunna inshaa'an fajacalnaahunna abkaaran. sidaasaa ilaahay yidhi annakaa bilaabayna kuwaa, bilaabid ayaan bilaabaynaa. markaasaan waxaan ka dhigaynaa bikaarooyin baan ka dhigaynaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. ayakoo wada dhallinyaro ah yaa jannada la geynahayaa.